waqtigan casriga ah tareemadu waa gaadiidka ugu muhiimsan isu socodka safarka dhulka siiba marka la rabo in dal gudihii ama dalal jaar ah lagu dhex safro waa mid ka mid ah tirarka dakhli soo xareynta dowladaha iyo fududeynta isu socodka dadweynaha waxaa si maalinle ah u raaca boqolaal milyan oo ay tareemadu u fududeeyaan danahooda faa'iidooyinka uu tareenku bulshada u leeyahay ma aha mid aan halkan ku soo koobi karo balse fiidiyogan waxaan ku eegi doonaa 10 wadan oo dunida caan ka ah oo markaad maqasho jihada iyo qaaradda ay dhacaan toona aanad ka fakareen oo aan haddana lahayn tareen ay dadweynuhu ku safraan Lambar 1 Malta waa dal dhaca koonfurta qaaradda Yurub xubinna ka ah dalalka ku bahoobay midowga Yurub waa dal jasiirado ah caasimadiisu waa Valletta waana dalxiisayaal badan oo caalamka soo jiita sidoo kale waa dal aan lahayn tareen ay dadweynuhu isticmaalaan Lambar 2 Iceland waa dal dhaca waqooyiga qaaradda Yurub waana dal ka mid ah 5 dal la isku dhaho Scandinavian countries sidoo kale waa dal jasiirado ka kooban caasimadiisu waa Reykjavik mana laha wax tareen ay dadweynuhu ku safraan Lambar 3 Andorra waa mid ka mid ah dalalka adduunka ugu yar oo dhaca qaaradda Yurub kuna yaal buuraleyda Pyrenees ee ku teedsan bartamaha labada dal ee Faransiiska iyo Isbaanishka waa dal xidhan oo aan bad lahayn caasimadiisu waa Andorra la Vella dalkani ma leh tareen dadweyne iyo garoon diyaarado toona Lambar 4 Bhutan waa dal dhaca koonfurta Aasiya ama bariga buuraleyda Himalaya caasimadiisu waa Thimphu waa dal xidhan oo aan bad lahayn sidoo kale ma laha wax tareen dadweyne ah Bhutan waxay ka mid tahay dalalka ugu farxadda badan dalalka Aasiya sanadkii waxaa dalxiis u taga dad aad u tiro badan Lambar 5 Cyprus ama Qubrus waa dal yar oo dhaca bariga dhexe caasimadiisu waa Nicosia waa dal jasiirado ah sidoo kalena aan lahayn wax tareen dadweyne ah Lambar 6 Kuwait waa dal Carbeed baaxad ahaan aad u yar oo dhaca bariga dhexe caasimadiisu waa Kuwait wuxuuna ka mid yahay ururka GCC iyo dalalka yar ee magaca dalka iyo caasimadoodu isku midka yihiin sidoo kale ma leh wax tareen dadweyne ah Lambar 7 Liibiya waa dal Carbeed oo dhaca waqooyiga qaaradda Afrika waa dal qani ku ah soo saarista shidaalka caasimadiisu waa Tripoli waxaa wax ka badan 40 sano xukumayay kaligii taliye Muammar al-Gaddafi oo ahaa hogaamiye jecel midnimada Afrika sidoo kale waa dal aan lahayn tareen dadweyne inkastoo ay hadda dhismihiisa wadaan Lambar 8 Guinea Bissau waa dal dhaca galbeedka Afrika caasimadiisu waa Bissau wuxuuna ka mid yahay dalalka uu Boortaqiisku gumaysan jiray sidoo kale waa dal aan lahayn tareen dadweyne Lambar 9 Uganda waa dal dhaca bariga Afrika waa dal martigeliyay Soomaali badan oo qaxoonti ah ciidamo nabad ilaalinna ka joogan Soomaaliya caasimadiisu waa Kampala sidoo kale ma leh wax tareen dadweyne ah 10 Soomaaliya uma baahna sharaxaad oo qof kasta luuqadan fahmaya uu ka dheregsan yahay taariikhda Soomaaliya